Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan asxaabta ku xiran channelka dhakhtarkaaga. Muuqaalkan waxaan kaga hadli rabaa wax loo yaqaano color blindness ama kala saarid la'aanta midabada. Kala saarid la'aanta midabada waa cillad dadka qaarkiis ah ay qabaan. Si aad isku tijaabiso inaad leedahay cilladda kala saarid la'aanta midabada, si fiican u fiiri sawirka shaashada kaaga muuqda. Ma arki kartaa xisaabta ku dhex qoran sawirka hore iyo kan dambe? Muuqaalka jooji, iskuna day inaad ka jawaabtid. Haddii sawirka hore jawaabteedu kuu soo baxday number 8, jawaabtaadu waa sax. Laakiinse dadka qaba cilladan waxaa u soo bixayso number 3 ama waxyaabo kale. Sawirka xigana isku day inaad adiga ka jawaabtid. Qaybta hoosena igula wadaag jawaabtaada. Haddii aadan arkin tirooyinka qaar, waxay ka dhigan tahay inaad la nooshahay cilladan. Sidaad wax badan uga ogaatid cilladan ama wax loo yaqaano color blindness iyo waxyaabaha sababo, ila dhammaysa muuqaalkan. Kala saarid la'aanta midabada waa cillad dadka qaarkiis ay qabaan. Waa inaan fahanaa marka aan leenahay cillad, waxa aan ka hadlayno ma ahan cudur. Waa shay uu qofku ku dhasho lana noolaan karo. Marka way kala duwan yihiin markaan leenahay cillad iyo cudur. Inkastoo cilladuhu kala duwanaan karaan, haddana cilladda kala saarid la'aanta midabada ama wax loo yaqaano color blindness ma ahan cillad dhibaato weyn ku haysa dadka ku dhasha, balse waxay saameyn ku yeelan kartaa qofka noloshiisa. Cilladda kala saarid la'aanta midabada waxay saameysaa 8% ragga adduunka ku nool, balse badanaa kuma dhacdo dumarka. Haddii ku dhacdana ma badno. Haddaba maxaa sababa cilladda kala saarid la'aanta midabada ama maxaa keeno wax loo yaqaano color blindness? Inta badan dadka qaba cilladan way ku dhashaan, gaar ahaan waxay ka imaadaa inta badan dhinaca hooyada. Marka laga hadlayo dhaxalka hidde-sideyaasha laga dhaxlo waalidka, cilladan waxaa laga dhaxlaa dhinaca hooyada. Marka ilmo cusub abuurmayaan, wuxuu ilmahaasi ka helaa tiro isla eg oo chromosome waalidkiisa. 23 chromosome wuxuu ka helaa qofka hooyadiisa, halka 23 kalena uu ka helo aabihiisa. Marka hidde-sidahaas mas'uulka ka ah ama sababa kala saarid la'aanta midabada wuxuu ka yimaadaa dhinaca hooyada, waana sababta ay cilladani ugu badan tahay ragga. Haddii ay hooyadu u gudbiso isla hidde-sidahaas ilmo gabar ah, gabadhaasi waxay noqonaysaa qof caadi ah oo kala sooci kara midabada, laakiinse waxay noqonaysaa autosomal oo waxay ka muuqanaysaa carruurteedii mustaqbalka ah, gaar ahaan kuwa ragga ah. Isla markaana wiilka wuxuu noqonayaa qof ku dhasha cilladaasi. Marka si guud haddaan u sheegno, hooyadu haddii ay qabtay cilladan color blindness ka ah, haddii ay wiil ay dhasho, cudurka wuu ka soo muuqanayaa. Laakiin haddii ay gabar ay dhasho, si dadban ayuu hidde-sidahaas jirkeeda ugu jirayaa oo carruurteedii mustaqbalka ah ayuu ka soo muuqan doonaa. Waxaa jiro sababo kale oo qofka ku qaadi karo cilladan asigoo aan ku dhalanin ama uusan ka dhaxlin waalidkiisa. Sababahaasi kale waxaa ka mid ah: number 1, cudurka sonkorowga ama wax loo yaqaano diabetes. number 2, gabowga. Sidoo kale dawooyinka qaar way keeni karaan cilladan. Si aan u fahanno kala duwanaanshaha u dhaxeeya dadka qaba cilladan iyo dadka aan qabin, waxaan u baahanahay inaan sharaxno shaqada ay qabtaan unugyada isha ee aadanaha u qaabilsan aragtida. Indhaha dadka bini'aadamka ah waxaa ku jira unugyo aad u tiro badan, kuwaasi oo qaabilsan aragtida, iftiinka, mugdiga iyo kala soocidda midabada. Haddaba farqi u dhaxeeya dadka ku dhasha cilladda kala saarid la'aanta midabada iyo kuwa aan ku dhalanin, waxaan ku qeexi karnaa inay tahay cillad ka timid unugyada 3 ah ee laga helo isha oo loo yaqaano cones, kuwaasi oo qaabilsan midabada 3 ah ee casaanka, cagaarka iyo buluugga. Haddaba haddii mid ka mid ah unugyadaasi 3 ah uusan si wacan u shaqaynaynin ama meeshaba uu ka maqan yahay, waxaa dhacayso cilladda kala saarid la'aanta midabada ama wax loo yaqaano color blindness. Sidaan hore u soo sheegnay, cilladan waa la noolaan karaa oo dhibaato aad u weyn qofka uma keeni karto. Halkaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalkii koobnaay ee aan kaga hadlayay wax loo yaqaano color blindness ama kala saarid la'aanta midabada. Waxaan rajaynayaa inaad faham buuxda ka qaadatay cilladan waxa ay tahay iyo waxyaabaha sababo. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, muuqaalkana like saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.